sexual transmitted diseases iyo cudurrada la iskugu gudbiyo galmada. inta badan waxaa loo isticmaali doonaa fasalkan tetracycline daawooyinka kasoo jeedaan. periodontitis waxaa loo yaqaanaa gum disease, yani cudur ku dhaco ciridada ama ciridka. and the other bacterial infections iyo caabuqyada kale inta badan keeni karayo bakteeriyada. the tetracycline class fasalkan tetracycline kan contains waxaa ku jira drugs daawooyin such as marka waxaa ka mid ah generic name iyo brand name examples, yani qaar ka mid ah daawooyinkan soo hoosgali doona fasalkan tetracycline groupkan kasoo jeeda antibiotic ayaynu arki doonaa inta daawo ay noqon doonaan. sida doxycycline, marka doxycycline ka ujeedid waxa weeyaan generic name. brand name waxay noqon kartaa doximar. sidoo kale brand name kale leedahay oo loo yaqaano monodox, doxy 100 iyo vibromycin. marka daawooyinka ujeed marka si loo fiiriyo yani magacayaasha soo idil waa magacyo loo yaqaano brand name. sida daawadan waa doxycycline waxayna wadataa brand name loo yaqaano doximar. brand name kala sii jiraan aad u tiro badan sida tameeshaad ugu jeedo. hadda lacala aragta brand name-yadaasi waxaad ogaataa in adiga ay ku kala duwan yihiin shirkadaha ay soo kala saareen.